bismillaah alxamdulilah soo dhawaada. waxaan maraynay anagoo ku duubnay oo ku install gareynay demo install yiraahnay maxaa la yiraahdaa daymiskii la oran jiray ama halkan ka muuqda Jannah News ayaan kusoo install gareynay website-keena. haddii aan home iraahdo ama loogada ay ku qoran tahay tooda aan maxaa la yiraahdaa ku dhufto xoogaa waxaan ka dareemayaa culays oo sida awal hore uusan ahayn. tusaale copy ayaan leeyahay oo waxaan aadaynaa website-kii aan ku fiiri jirnay. website-kaas ayaan basta ku leenahay si aan u ogaano waxa website-keena ka qaldan meelaha laga haysta inuu yahay website slow ah iyo sidoo kale inuu yahay website fast ah. dabcan waa aragtaan isbedel weyn ayaa ka jira website-keena oo 58% ayuu marayaa dhanka mobilada dadka kasoo maxaa la yiraahdaa booqanaya oo website tayadiisa ay aad u sareyso oo slow ah heer uu gaaray 58%. haddii aan kombiyuutarada fiirino 75%. sidaas daraadeed waxaan kusoo duubeynaa plugin-iska lagu magacaabo WP Supercheck oo runtii ay install gareysteen wax ka badan 2 milyan. WP Super haddii aad tiraahdo si toos ah ayuu usoo saarayaa. waa aragtaan waa kan midkan ay saacadda speedkiisa gadaal sii gaaraysa ay ku sawireen waaye oo wax bil ka hor ayaana maxaa la yiraahdaa update gareeyay oo inta badan markaad isticmaalaysaan plugin aad isaga fiiriya waqtiga la update gareeyay. tusaale hadda kan oo kale 3 bil ka hor ayaa la update gareeyay, kan 4 bil ka hor. marka inta badan 4 isbuuc ka hor ayaa marka inta badan waxaa fiican in aad isticmaasho website update plugin update ah oo mar waliba shaqo lagu hayo. install ayaan leenahay waa free. website-keena in wax badan ka bedeli doono ayaan rajeynaynaa biidnillaah. waxaan hadda ugu duubeynaa oo speedka u kordhinayna waxay tahay waxaan gali rabnaa shaqo aad u culus oo ah inaan website-kan ka dhigno website annaga aan leenahay oo maxaa la yiraahdaa wax badan aan ka bedelno. oo hadda website-kan wuxuu u dhisan yahay dhinac waliba haddii ay ahaan lahayd maxaa la yiraahdaa category-ga uu ka dhisan yahay anaga wax category maana soo dhisan page uu ka dhisan yahay inta badan laakiin kaliya 2 page ayaan u baahnaan doonaa waana dhisi doonaa. wuxuu kaloo leeyahay menu sida arkayseen waa maxaa la yiraahdaa dhinac walba website themes ka dhisan oo sidiisa ah ayaan install ku niri. marka hadda bal aan halkan maxaa la yiraahdaa refresh dhaho kanina aan analyzer dhaho bal waxa isna iska bedelay aan fiiriyo. dib ayuu u dhacay sida aan ka aragno haday 58 ayuu ahaa 56 ayuu noqday. marka daymisyada mid waliba wax ayuu ku fiican yahay oo hadda kan meesha aan ka arko mid haday aan arkayay daymisyo qaar aan soo isticmaalay runtii aad ay fast ugu ahaayeen oo kan hadda waxa laga yaabaa optimize ama sidoo kale WP fast ama little speed mid kamid ah plugin-yadaas aan isticmaali doonno inuu u fiican yahay laga yaabaa. laakiin markaan delete check ayaan leeyahay oo hal mar ayaan soo fiirinayaa waxa isbedel lahay dhaca. 54 mar waliba aan aragno hoos ayuu usii dhacayaa. laakiin waxaan sameynaynaa inaan plugin-iski iska tirtirno oo aan plugin kale soo install gareysano. wuxuu ahaa kan WP Supercheck deactivate ayaan leenahay. waxaynu aadaynaa plugin kale ayaan kusoo duubeynaa. wuu dhameeyay add new ayaan leenahay si midkan mid ka fiican aan ugu soo duubno. waayahay kaas haddii saas uu ahaa WP fast ayaan fiirinayaa amaba optimize ama little speed mid ayaan ku horumari doonaa insha allah. WP fast markaa xoogaa u yara dhamaystirto ayaa laga yaabaa inuu kuu soo saaro. waa kana midkan 1 milyan iyo wax la jiro ayaa install gareysatay 4 isbuuc ka hor ayaana la update gareeyay. asaga ayaan install leeyahay activate-na leeyahay waxa iska bedelo ee ku fiican yahay ayaan eegi doonaa insha allah. waayahay bal clear check aan iraahdo delete check. bal aan aado dhanka iyo page speed test oo inoo sheegayay waxa iska bedelay website-keena. waxaan sidaana u suubinayna waxay tahay website-kaaga markay dadka soo booqanayaan lama rabo inay ku daahaan oo waqti badan sugaan caajis iyo maxaa la yiraahdaa
iyo inay kaa tagaan aysan dadka ku qasbin. arrintaasna runtii aad ayaa looga taxadaraa oo ma ahan wax ku fiican website-kaaga qofka inuu in badan sugo waqtigaagana waqtigiisana uu ku bixiyo. 57 runtii isbedel xoogaa kuwii hore ka bedelan ayaa dhacay, inkastoo markii hore uu ahaa 58 markii ayna waxba ku install garaysneen. laakiin si walba oo ay ahaato waxaan isku dayeynaa inaan wax ka bedelno sidan ay hadda xaaladu tahay. Optimize ayaan markaan kusoo shubaynaa. maya markaan lit speed ayaan isticmaalayaa. waa aragtaan lit speed ayaan install leeyahay. inta badanna isku daya markaad plugins isku nooc ah isku shaqooyin qabanaya markaa install gareynaysaan ina kubii hore ka daleedaan. hadda kan activate ayaan leeyahay, kan waan isaga dhaafayaa. laakiin inta badan marka aad website isticmaalaysaan ha isu dayina ama ha isku daynina laba nin ama laba app oo isku shaqo ah. kolley laba qof meel kama wada taliso dabcan sidaa ogtihiin. way jiraan plugins qaar is awoodsanaya oo is xoogsanaya, laakiin waxaa fiican in maxaa la yiraahdaa aad isku daynin si iyagu ay soo cariirinin. kontoni 8 kan uu fiican yahay halkeeni ayuu inoo soo celiyay. kulley adiga way jiraan daymiskan hadda wax ku haboon oo aad ugu fiican weli ma aanan arag. saas daraadeeda waxaad maxaa la yiraahdaa isku dayi kartaa inaad sameyso plugins midka uu ka fiican yahay mar waliba insha Allah tacaala isku day. oo haddii aad internet ka raadisaan waa arki doontaan sida loo kordhiyo awoodda maxaa la dhahay speedka wordpresskaaga ama website-kaaga. waxaa hadda culeyskan oo idil inoo keenayaan wuxuu yahay website-kii waa mid buuxa oo maxaa la yiraahdaa oo haddii tusaalo aan all post aan iraahdo waxaa ku jira wax ka badan maxaa la yiraahdaa wax aad u fara badan ayaa la soo posti gareeyay, sawirro badan oo aad u tayo sareeya ayaa soo maxaa la dhahaa ay ku soo xareeyeen daymiskan. oo halkaan sida aragtaan waxaan oo dhan waa wax waqtiyo badan la soo geliyay. 23 daqiiqo ka hor ayaa la soo geliyay uu leeyahay, laakiin waa beentiisa. waa ka hor waqtigii aan soo demo install dhahnay daymiska. waa aragtaan halkaan ilaa 3 page kale ayaa dhinacaas naga sii jirto oo wixii ayaga ay soo wada xareeyeen. runtiina website mar waliba adiga isticmaalayso uma maleynay in sawirada aadka u tayada sareeya ee iyagu isticmaalayaan inay isticmaalaysa. taasana waxay keentay in website-kii uu noqdo mid aad u culus. tusaale hadda sida meeshan ka aragtaan waxaanoo dhan way soo install gareeyeen, way soo upload gareeyeen aan iraahday. waa sawir aad u tayo sareeyo. marka adina marka warbaahin ama news aad tahay waxaa isticmaalaysaa un sawirro aad maxaa la yiraahdaa kasoo koobiyeysata googlaha ama mid kugu jira computerkaaga oo mar hore googlaha lasoo geliyay. sawir googlaha laga soo koobiyeyna waxaanan 300 KB ma gaaro, iska badhaafay 1 MB. marka dhismo weyn ayaa ina sugaysa oo inaan maxaa la yiraahdaa website-kan aan ka dhigno website anaga aan leenahay si maxaa la yiraahdaa uga bedelnaado qaabkan. si hawshan aan u marno hawsha koobaad aan sameynayna waxay tahay inaan niraahno customize waa qaab live ah oo adigoo u jeeda wax waliba aad bedelaysid ayaad bedelaysaa. waxaana shaqadeena koowaad ka bilaabi doonaa qaybta kore oo loo yaqaano header. qaybtan ayaan ka bilaabi doonaa oo home waan u dhaafeynaa. waxaan waan iska tirtiri doonaa oo world ay ku qoran tahay world, sidoo kale tag maxaa la yiraahdaa lifestyle. waxaan dhan waan iska bedeli doonaa insha Allah si aan hawshaan oo idin u sameyno. markii maxaa la yiraahdaa customize ay dhahna qaybtan ayuu inoo soo saarayaa oo falaar waliba meeshii ay ku aadan tahay markaan furno shaqooyin gooni ah ayaa laga qabanayaa. tusaale haddii aan qaybta koowaad ku dhufano waa magaca koowaad ee kusoo qormayaan website-kaaga markii ay dadka soo galaan ama ay raadinayaan. tusaale markaan halkaan calaamada saar waa aragtaan wuxuu kusoo qorayaa tijaabo 2. iyo sidoo kale
halkan oo inta badan qaybtan kasoo muuqata laakiin waxaa ka buuxisay loogo ay iyagu leeyihiin. loogadaasna waan iska bedeli doonaa. menus aan u imaano. menus waan soo baranay, waa kuwan iyo wax waliba iyagoo hoos yimaada ayaga ay ku dhisan yihiin. marka ayaga ayaa iskale qaybtan menuskooda waa kana oo sidan ayuu u dhisan yahay.